kadib markii xildhibaano fara badan ay keeneen tooshinka guddiga baarlamaanka dariiqii saxda ahaa tooshinkaasi la marin lahaana in la mariyey sidii uu caddeeyey baarlamaankana la ballamiyey marar badan wararka faraha badnaa ee shacabku isla dhex marayeen aan arkaynay iyo miidiyaha wixii ugu dambeeyey oo saaka dhacayna waxay xaruntii baarlamaanka in la yidhi ciidamada soo galay ciidamadaas oo runtii aad looga digayey ciidamaduna ilaa hadda ay ku jiraan baarlamaankuna uu bannaanka dhuuban yahay sida la sheegay jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad maad cawadna ay gudaha ku jiraan iyo ciidamo sida la sheegay iyaga taageersan xildhibaanada intii kalena ay bannaanka taagan yihiin run ahaantii waxa meesha ka dhacay waa wax baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeedba dhibaato ku ah waxa baaritaanka iyo hay-adaha amniguna dabcan iyagaa soo saari doona sida ugu dhaceen xildhibaanada waxaa looga baahan yahay dulqaad cidna khasab gudoomiye kuma ahan karta baarlamaanku gudoomiyuhu doortaa hadduu rabana waa ridaa marka gudoomiyaha haddii markii hore la doorto cod la siiyo marka dambe codka khasab kuma haysan kare baarlamaanku hadday codka kala noqdaan waa inuu gudoomiyenimada ka tagaa mana aha gudoomiya ugu horreeya codka lagala noqdo codadka xildhibaankuna waa muhiim xukuumadda waxaa laga doonayaa inay ammaanka baarlamaanka adkayso wax uu la soo geli karo baarlamaanka ma jiro aniga saaka securitigayga waxaa lagaga reebay meel ku jirta 10 kilomitir baarlamaanka sidoo kale xildhibaano kale iyo ciidamo kale inay u maamul soo galaan sax maaha waxa meesha ka dhacayna wax loo baahan yahay maaha mas'uuliyad baynu nahay odayaal baynu nahay gudoomiye jawaari waxaan kula talinayaa maalin wuxuu ka hadlayey shacabka loo celo wuxuu ka hadlayey tanaasulaad loo baahan yahay wuxuu ka hadlayey inay lagama maarmaan tahay in la xalliyo arrintan waxaan u rajaynaynaa xoog kuma ahan karo gudoomiyaha baarlamaanka xoog kuma ahaan karo maxaan ku idhaahdaa howlka baarlamaanka kuma joogi karo sharci iyo nidaam baan ku joogaa gudoomiye jawaari waxaan usoo jeedinayaa saaxiibkay gudoomiyahaygii aan maaragtay doorashada ugu wada tartarnay markii iga guulaystana aan u taaniyadeeyey in maanta hadday xildhibaano 197 xildhibaan ay petition saxeexaan oo petitionka gudoomiye waa kaala noqonay kalsoonidii macnaheedu waxay tahay waa inuu ka degaa waayo marka waxaan ugu baaqayaa kana codsan lahaa odaytinimadiisa inuu seef garaysto karaamadiisa uusan ku ciyaarin aqoontiisa uusan ku ciyaarin uusan u horseedin shacabka in dhibaato ay dhacdo ama baarlamaanka dhibaato ka dhex dhacdo intaa hadda dhacday baa ceeb ugu filan intaasaa ugu filan sumcaddin intaa wixii ka badanna waxay noqonayaan inuu maaragtay sumcaddiisa ay sii dhimato waxaan rabaa inaan mar labaad ugu baaqo gudoomiye jawaari inuu si sharaf leh oo karaamo leh oo cisi leh uu baarlamaanka mar haddii xildhibaanadu kalsoonidii kala noqdeen uu ka leexdo oo uu ka dego xildhibaanaduna waxaan ugu baaqayaa inay xildhibaannimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda ilaaliyaan shacabka soomaaliyeedna waxaan sheegaynaa dhibaata ma jirto waa la isqabanayaa laakiin waa la xallinayaa oo cod baa lagu kala baxaya xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa saraakiisha ciidamada inay amniga baarlamaanka iyo amniga maxaan ku idhahdaa magaalada waddooyin in la xidha keliya maa amniga baarlamaanka in la ilaaliyo saaka waxaa la sheegayaa in dad badan laga soo saaray oo meesha u hoyday waxaa la sheegayaa in hub badan lala galay ilaa bastoolado fara badan iyo qoryo fara badan lala galay taasina sax marka idinka miidiyahana waxaan idin rajaynaynaa inaad wanaagga ka shaqaysaan waxa dhabteeda aragtaana aad ka shaqaysaan fariintayda mar labaad waxaan ku celinayaa gudoomiye jawaari 197 xildhibaan petition hadday siixdo macnaheedu waxa weeye waa kalsooni kala noqosho waa sharci waa nidaamka in la baro 10 maalmoodaa dhammaatay iyo mooshinaa expire noqday iyo waxaasi macna masaanuu xildhibaanadii mooshinka soo qoray kuma jirin laakiin mar haddii saaxiibba soo qoreen nidaamkana uu waafaqsan yahay waa lagama maarmaan in dariiqaas la maraa meel ka sokoysoo lagu hakin karo iyo xeer lagu dhaqmi karo iyo xeer soomaali iyo xeer jajab kale oo lagu dhaqi karaana ma jiro xildhibaanadii mooshinkaas soo qoray kuma jirin laakiin waxaa sax ah mar haddii intaa la soo mariyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu saxiixay in mooshinkaas la qaado wax intaa ka badan oo lagu haysan karaana ma jiro baarlamaanka iyo waddankuna intaa ka badan ma xayirnaan karayo waxaan u soo jeedinaynaa in loo hoggaansamo sharciga lagu jooga aniga 2 cod baa laygaga helay guddoonka baarlamaanka waana u hoggaansamay 197 cod in ay kalsoonida kala noqoto oo mar labaad haddana maxaan ku idhaahdaa beekeemiye iyo qoryo iyo balaayo lala yaacay lala yimaado waxaase waa xilli waa hore laga soo gudbay aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu